videogan waxaan idinku tusi doonaa sidaad isku diiwaan gelinayso kooraska aad lacagta u soo dirayso iyo wixii kale aan maaragtay ka gaari karo. marka laba meelood baad iska diiwaan gelin kartaa website-ka. xagga koobaad markaad website-ka saa usoo gasho xagga greenka maaragtay buttonka greenka ah ee isdiiwaan geli ay ku qorantay waad ku dhufan kartaa. haddii aad doonayso macluumaad maaragtay intaa ka badan inaad kooraska ka ogaato hoos baad wadi doontaa. sidaad arkayso waxaad ku baranaysaa cryptada sida ugu fudud. waxaanu idin haynaa casharo tayo leh, khibrad badan oo aan cryptocurrency-ga u leenahay, iyo inaan money back guarantee kuu samayno lacagtaada kuu soo celino haddii uu koorasku wax kuu tiri waayo. dabcan waxaa la socda shuruudo ay tahay inuu ardayga raaco. marka shuruudahana waxaynu ku arki doonaa xagga hoose oo ay ku qoran yihiin. marka maxaanu kaga duwanay akademiyada kale? saan idiin sheegay casharo tayo laanu idiin haynaa, strategy shaqaynaysa oo aad ama haddaad long term u baahan tahay investment iyo haddaad meme coin trade garaynaysa oo day trading aad samaynaysaa, istaraatiijiyado ku habboon oo kaa caawinaya inaad badiso profitkaaga iskana yarayso khasaarahaaga ayaanu kuu dhigi doonaa. daacadnimo oo waxaanu kaa qarinayno suuqa suu shaqaynaya ma jirto. suuqa reality-giisa aanu fartayda ka saaraynaa. saan idiin sheegay money back guarantee-na waanu wadnaa oon idiin samaynaynaa haddii aad mar labaad waan ku celinayaa shuruudaha buuxiso. marka qaybaha koorsku ka kooban yahay baad u iman doontaa. 5 qaybood buu koorsku ka kooban yahay. waa asaasiga ama foundation-ka inaad maaragtay barato cryptocurrency-ga. waa maxay cryptocurrency-gu, waa maxay blockchain-ku, waa maxay wallet-ku, exchange-ku, seen u samaystaa wallet, seen exchange u samaystaa, waxyaabahaas oo dhan ayaad halkaa ku baranaysaa. waxaad usoo gudbi doontaa insha Allah tokenomics-ka oo isaguna topic aad u muhiim ah markaad xulanayso coins-ka for long term investment ama markaad u xulanayso maaragtay inaad meme coin soo qaadato day trading samayso. labadaba sida loo eego loo xusho loo eego economiga token-ka ama coin-ka ayaad xaggana ku baran doontaa. strategy and trading waxaad halkana ku baran doontaa istaraatiijiyadii aan idiin sheegayay. laba strategy oo mid haddaad long term doonayso inaad invest garaysato coin-ka ama token-ka, iyo mid haddaad day trading doonayso oo aad maaragtay meme coin trade garanayso. labadaba xaggaasaad ku baran doontaa. waxaa kale ku xigi doona insha Allah risk management oo ah inaad aad iyo aad iskaga saarto maaragtay mas-uuliyad badan oo aad ku baran doonto module-kan sida loo maamulo lacagaha, sida loo maamulo lacagtaada, saad u maamuli lahayd khasaaraha trade-ka kaaga iman kara, iyo saad naftaada u xakameyn lahayd oo aad maaragtay aanad u raacin emotional aanad u noqon oo trade losing aanad u qaadan. qaybta u dambeysa waxaan idinka dhisi doonaa dhinaca security-ga oo aad baran doonto devices-kaaga si aad maaragtay u secure garan lahayd. hadday noqoto mobilkaaga, hadday noqoto laptop-kaaga, kolba meeshii aad ka isticmaalayso sida ugu fudud ee ugu effectivesan ee aad maaragtay u secure garayn karto. wallet-kaaga saad u ilaalinayso, exchange haddaad isticmaasho security-ga exchange-ka iyaguna, iyo dabeecado ay tahay inaad naftaada maaragtay kusoo kordhiso si aad u ilaaliso amnigaaga. marka kaana halkaasaad ku baran doontaa. waxaynu ugu soo daadegi doonaa qiimaha kooraska. qiimaha koorasku caadiyan waxa weeyaan $199 sanadkiina hal mar baa la bixinayaa. imika laakiin ilaa 15 May saan ku sheegay videogaygii hore waxa aanu samaynay 30% qiimo dhimisa qiimaha. marka imika haddaad isdiiwaan geliso waxa ka horeeya 15 May aad bixinaysaa waxa weeyaan $139 ayaad bixinaysaa. marka waan idin lahaa laba meelood baa la iska diiwaan gelin karaa. mid xaggii sare xaggan ay ahayd oo bartaas aad iska diiwaan gelinaysaa, midna waxaad iska diiwaan gelinaysaa xagga qiimaha hoostiisa ee isdiiwaan geli ay ku qoran tahay. marka inteenan isdiiwaan geli u tegin waxaa halkan aad ka helaysaa su'aalaha nagu badan ee nagu soo noqnoqda. casharadu luuqaday ku baxayaan, Soomaali bay ku baxayaan insha Allah. xaggan waxaa markaa ku jirta goorta lacagta lagu celinayo.
marka waxaa lagu celinayaa lacagta laba shuruud oo keliya ku xidhan. waxaa ku xidhan inaad kooraska dhammaysatay bilow ilaa dhammaad, aad fahantay ood waqtigiisa gelisay, dadaalkiisana gelisay. Challengeska kooraska la socdana aad sidooda uga soo baxday oo aanad waxba la hakran. markaad intaas samayso, haddii ay markaa kooraska aad benefit u arki weydo ama aad faa'iida ka arki weydo, waanu kuu celinaynaa lacagtaada. haddii kale oo dhinacaaga qalad ka yimaado ama aad hakrato ood shaqadii wada qaban weydo ama aad kooraskii dhammayn weydo ama challengeski aad dhammayn weydo ama intaad maaragtay iska dulmarto one time aad kooraska daawato, aad conceptskii koorasku ka hadlayay ama casharadii aanad caadi u fahmin, hadhow toolana challengekii aad ku dhacdo, dee waa waxaad adigu isku keentay, annagu kama mas-uul nihin. koorasku wax lacagoo lagaaga celinayaa ma jirto. marka shuruudda ku xidhani waa labadaa shuruudood, sidaasaad ula socon doontaan. xagga hoose haddaynu soo soconno, xidhiidhkaygii baad halkan ka helaysaan. numberkaad naga soo garaacaysaan waa kaa, whatsappkuna waa kaa, email haddaad noo soo diraysaan kaasaad nagala soo xidhiirsaan. xagganna waxaad ka helaysaa meelihii aad social mediaha nagala soo xidhiiriseen. marka haddaba aynu isdiiwaan gelinno, isdiiwaangelinta processkeeda aynu bilowno. isdiiwaangeli aan taabto, 3 tallaabo markaa kugu soo baxay oo isdiiwaangelintani ay ka kooban tahay. mid waa xogtaada, waa xogta aanu kaala soo xidhiiri doono eed kooraska isku diiwaangelinayso. magacaagoo saddexan baad xaggaa gelinaysaa, emailkaagaad xaggaa gelinaysaa, numberkaagaad xaggaa gelinaysaa. haddii aad haysato number whatsapp, xaggaa number whatsappka geli. haddii aanad numberkaaga whatsappku aanu ahayn number lagaa soo garaaci karana, numberkaaga lagaa soo garaaci kara xaggaa geli. da'daadaad halkaa gelinaysaa, magaalada degantii baad xaggaa gelinaysaa. intaa markaad dhammayso waxaad taabanaysaa sii wad. han buuxbuuxiyo intan buuxbuuxiyo waayda igama yeelayo. waxaan u buuxbuuxinayaa wax kale maaha, waxa weeyaan saan tallaabada labaad u tago, for example Hargeysa. marka intaas markaan ku buuxiyo, mid kasta markaan buuxiyo ayuunbuu ii ogolaanayaa inaan sii wado. hadduu mid kaa dhimayo wuxuu ka odhanayaa waa inaad buuxiso. haddii aad wax qaldan ku buuxiso wuxuu ka odhanayaa wax qaldan maad ku buuxiso. ilaa aad saxdana kuma ogolaanayo inaad sii wado. markaa sii wad baad taabanaysaa. okay, magacaaga saddexan waa kaa. magacaaga saddexan markaa maan gelin, markaa anigaa magacayga saddexan geliyey. okay, waa sii wad markaad taabato wuxuu ku geynayaa tallaabada labaad. markaa tallaabada labaad waxaad haysataa lacag diridii. markaa saad haddaad kusoo dirayso saad baad taabanaysaa. markaad saad taabato waxaad koobiyeynaysaa wakaa saad koodhkii, koodhkaasaad koobiyeynaysaa, lacagtii baad soo diraysaa. markaad lacagta soo dirto ayaad odhanaysaa waan diray. markaad waan diray tiraahdo ayaad xaggaa soo gelinaysaa magaca aad ka soo dirtay. for example waxaan kasoo dhigay test ayaan kasoo diray. magacaaga afran baad xaggaa gelinaysaa iyo numberkii aad lacagta kasoo dirtay. for example waxaan kasoo diray 1 2 3 4 5 6 7. intaa markaan geliyo ayaan sii wad odhanayaa. dahabtana waa saas leg, intaasoo kale kusoo baxaysa. haddii aanad markaa saad kusoo dirayn ama aanad dahab kusoo dirayn, waxaad taabanaysaa meesha ay ku qoran tahay others. markaad taabato waxaad halkan soo gelin doontaa meesha aad kusoo dirayso. markaa waxa kula soo xidhiiri doona tiimkayga, whatsappka lagala soo xidhiiri doona, waa lagaa verify garayn doonaa lacagta, markaasaa lagu sii dooni doonaa kooraska insha allah. markaa iminka aynu saad eegno. markaad saad intaa tiraahdo waan diray eed buuxisa labadaa, sii wad baad odhan doontaa. markaad sii wado wuxuu ku tusi doonaa pagekan oo aad ka hubin doonto xogtii aad gelisay ma saxba mise maaha sax. haddii aad ku qanacdo xogtaasi ay tahay sax, then safe baad taaban doontaa. haddii ay wax ka qaldan yihiinna tallaabooyinka kolba kii ay wax ka qaldan yihiin eed kusoo buuxisay baad ku noqon doontaa. for example tallaabada labaad bay wax ka qaldan yihiin, xaggaasaad kaga noqonaysaa. tallaabada koowaad bay ka qaldan yihiin, halkaasaad wax kaga noqonaysaa. markaa haddii aad maaragtay markaa lacagta soo dirtay, markaad halkaa hubinta taagan tahay, waxaad noo soo diri doontaa screenshotka lacagta aad kusoo dirtay ama saad ama dahab. hadday iminkoo kale premier wallet noqoto,
screenshotkii aad lacagtu kaaga soo baxday ayaad WhatsApp kusoo diri doontaa. markaad WhatsApp-ka click garayso automatic waxa kuugu soo bixi doonaa WhatsApp application-kii oo aad noogu soo diri doonto screenshot-ka. markaad intaa dhamayso aad screenshot-ka noo soo dirto waxaad oran doontaa insha Allah save markaad tiraahdo waa ka wareegay waad ila sugaysaa wuxuu ku oranayaa diiwaangelintaada waa lagu guuleystay. marka uu saa ku yiraahdo waxaad sugaysaa 12 saacadood intaan verify garaynayno lacagtaadu inay soo gashay fiigii laga hayo. marka waxa kuu soo dhici doona email. marka waa inaad markasta xagga horena emailkaaga oo saxan aad gelisaa xaggan hore isdiiwaangelin markaan taabto xagga waa inaad email shaqaynayo oo ka warhayn karto aad gelisaa saanu emailkaasi kuu dhaafin oo aydan isku waayin. marka email ba kuu soo dhici doona emailkaas oo ku oranaya lacagtii waa laga hayaa waa ka meeshii aad ka daawanaysay course-ka iyo Discord linkiiba labadaba isaga ku soo diraya. marka intaasaan kusoo gabagabeynaya wixii aad su'aal haysaan waxaad igu soo weydiin doontaa mar labaad WhatsApp-ka numberkan waad iga soo garaaci doontaan ama any of our social media. haddaad email noo soo diraysana waa ka emailkii. aad baan idin wada salaamaya.